Markaad isticmaalayso keyboard shortcuts waxay kuu sahlaysaa inaad soo gaabiso waqtigaaga. Tusaale aan ku siiyo, markaad rabto inaad aado settings waxaad aadaa starts, kadib waxaad kasii doorataa settings sax. Ka waran haddii aad taabato Windows plus I, waad ujeedaa inay aad u fudud tahay. Waxaan idinla wadaagi doonaa 8 shortcuts kaasoo kuu sahlayo inaad kombiyuutarkaaga si fudud aad u isticmaasho. Haddaba daawasho wacan. Marka aadan jecleen ama aadan jeclaysan in qof saaxiibkaaga ama qof kale noqday uu arko xogtaada ku jirta kombiyuutarka. Sidaas darteed waxaa waqti noqonayo inaad aado minimize oo aad hoos keento. Waxa kaaga fudud adigoo isticmaala Windows plus D. Akuugu celiyo Windows plus D. Mujeda aad ay u fudud tahay. Marka aan rabno inaan hoos keensano Windowska ama softwareka aan isticmaaleyno, marka hore waxaan taabanayna Windows plus D kaasoo wada hoos keenayo wixii software ama wixii furnayo Windows ah oo wada hoos keenayo desktop-ka keenayo. Markaan waxaan rabnaa inaan half ahaan ama hal xabo oo kaliya halkii aan softwareka kaliya aan isticmaalayn inaan hoos keensano. Marka waxaan qabanaynaa Windows iyo arrowga kore ama hoos haddii aad rabto waxaad qabanaysaa arrowga Windowska ayaad qabanaysaa, kadib waxaad taabanaysaa arrowga hoose. Mujeda haddii aad rabtan inaad ku soo celiso waxaad taabanaysaa arrowga kore. Maxaa dhacaya haddii aan taabano arrowga kore mar aan taabanay, haddii aan mar labaad taabano waxay noqonaya half ayuu noqonaya. Mujeda haddii aad taabano haddana arrowga hoos ayuu imaanaya. Marka aad ka gaari karin inaad xirto laptopka, waxaa waqti haddana noqonayo in aad start tagto, kadib aad right click dhahdo oo shutdown qaybtan aad tagto, kadib aad dhahdo sign out. Marka waxaad sameynaysaa oo kaliya waxaad qabanaysaa Windowska, kadib waxaad taabanaysaa L si toos ayuu isku xirayaa. Mujeda wuu isxiray. Markasto waxaa laga maarmaan ah in aan isticmaalno my computer ama file explorer. Waxaa waqti noqonayo in aad raadiso file explorer adigoo aadayo xitaa haddii aad ka weysay desktop-ka start, kadib aad raadiso my computer. Waxaa kaliya aad sameynaysaa waxaad taabanaysaa Windows plus E. Mujeda aan kugu celiyo mar kale Windows plus E. Mid kale ayaa haddana kuu soo furmaya. Haddii aad rabto in aad bedesho qaybtii hadda aad ku jirtay oo aad u bedesho qaybta kale aad soo kacsatay, waxaad sameynaysaa oo kaliya waxaad taabanaysaa alt iyo waxaad isla qabanaysaa tab. Mujeda adigoo sida u haayo waxaad dooranaysaa qaybtii kale ee aad rabtay inaad u gudubto. Mararka qaar waxaa la isticmaalaa application ama software si screenshot loo qaado. Marka kaliya waxaad sameynaysaa waxaad qabanaysaa Windowska, kadib haddii aad laptopkayga oo kale aad wadato meesha ku qoranta FN ayaad hal mar isla qabanaysaa Windowska FN iyo meesha ku qoranta end ama print. haddii aad haysato laptopyada kale ee iga duwan waxaad qabanaysaa Windowska iyo print ayaad hal mar isla taabanaysaa.
mujida wahagaag xaguu aadan marka sawirku wuxuu aadayaa qaybtan picture ay ku qoran tahay kadib waxaad ka arkaysaa meel ay ku qoran tahay screenshot waaba kan aaba sawirkii haddii aad rabto inaad folderka ama fileka ha noqdo adoo rabo video ama maqal aad mataqaanay copy dhahdo inta haddana dhehayso waqtiga mugtahay right click inta dhehayso kaliya waxaa qabanaysaa control kadib mouse-ka ayaad dhinac u jiidaysaa mujida dhinaca doonto ayaad keensanaysaa waxaa mararka qaar waqti noqonaya sidaad u tirtir lahayd qoraalada kaliya waxaad qabanaysaa control kadib waxaad taabanaysaa ama ku celcelinaysaa backspace group ama qayb ayuu u tirtiraya 8 shortcut waa inta aan jeclaystay in aan idinla wadaago inta aan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idin leeyahay ii faraxsanaada